وزير كحييك وزارة دقة تلحيسك جمهورية سومالان محمد شيخ عمر ويواليان سلطان أبشر مدحا أولها iyo wacdigelinta xisba kulmiye Cabdi Cali xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi ayaa kormeer ballaaran ku maray oo diiwaangelinta iyo sida ay u socoto deegaanada kala duwan ee ka mid yihiin Caratuulka Kalabayd Goray iyo Boqor Carra Guduudan iyo Jaare iyo Arabsiyo halkaas ay soo indheeyeen sida habsami socod kale ay u socoto waxay warbixin ka dhageysteen gudoomiyaha tuulooyinka kala duwan ee ay marayeen uu waftigaasi halkan tuulooyinka Jaare si fiican bay u socotaa kaar qaadashadii laba gaadhna way noo shaqeynayaan oo dadka soo dhigay celinayeen labada gaadhna uu noo soo diray si fiican buu socotaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan waxba naga baaqan ee ay dadku wada qaataan kaarkii anagu waxaan reer Goray abaar baan ugu dhacday dadkii way guureen qayrta geed ballaan waxay joogaan ilaa xaqo Jaare dadka waxaan doonaynaa intaan soo dhaweyno hanu iyaga hadana ku kay Soomaaliland soo dhaweynaan baabuur soo qaado waxa kale oo u baahanahay raashin loo sii dhigo dadka abaar ku dhacday kiyaa ka joogay maanta raashin kala goobtu aad baa wanaagsan maxay maamulka degmada isna markasta la jooga marka shaqo si wanaagsan loo socdo ما شاء الله تولدين هم بلينا إلى سمعتنا وحشك إني طحن لا يو توكي ما كذا وحي وعكرنا يو وحي تدرك سيلو كنا دعوة شاسي رحمت الله كل تيجي يا سال وقت قادر سامع kooban ka jeediyay wasiirka xigeenka dhaqanka iyo dalxiiska Maxamed Sheekh Cumar oo ka waramay ujeedada ay maanta u marayeen goobahaasi Mahdi Maxamed Xaashi Sultan Abshir iyo sidoo kale Cabdi Cali oo madaxa ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley oo halkaasi hadallo kooban ka jeediyay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan joognay Jaare waxaan aad ugu faraxsanahay habka ay shaqadu u socotay ilaa intii leeyahay saacadii subaxdii baan soo kormeer ilaa imika waan soconaa marka waxaan rajaynaynaa in natiijooyin wanaagsan ay kasoo baxaan waxaan aragnay inaan loo kordhin waxaan ku laabinaynaa in ay dadaalka sii wadaan ilaa hadafka ay leenahay in gaadhno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadaalkiina sii wadaan waxaan farayaa waad arkaysaan markaa in dadku si fiican ay u soo baxeen in si fiican ay u soo diyaargaroobeen sida ay u qaadan lahayd warqadda kaarbadarka aad bay u dareysan yihiin goobta Goray waxaad moodaa dadkeedu inay aad u dhiiran yihiin oo ay garanayaan ujeedadu waxay tahay la sameeyay waxaad moodaa mireeyay inay muuqdaan dadku sida hawsha ugu wadaan hawsha si fiican buu socotaa aad baan ugu mahadnaqaynaa maamulka iyo mas'uuliyiinta tuulada sababtoo dhiirigelintii iyo wacyigelintii dadka ay u sameeyeen dadkii way muujiyeen aan maanta joognaa waa Goray waxa ay u soo baxday sidii la rabay bay u soo baxday hambaliyo waan ku hambaliyeenayaa Goray aad baan ugu hambaliyeenayaa boqolkiiba 9 baan hambaliyeenayaa qofku waxa uu qof yahay marka uu kaarkiisa yar muwaadinimada gacanta ku qabsado ee uu haysta ayuu qof yahay loona baahaya laakiin haddii uu kaarkiisa waayo dhagax meel yaalla kama duwana waxweeyla saaka qoomo fara badan soo marnay goobi fara badan soo marnay aad iyo aad waxaan ugu farxno ayaan ku aragnay waxaan aad iyo aad u fikirinaa in goob kaliya aan kaar ka noqonin ee goob kasta kaarkeedii la qaato annaguna waxaan joog marnaa goob kasta guri sandaqad buulbuul ayuu istaagna qof kasta waxaan ku wacyigelinaanahay qaata kaarkiina si aad ugu codeysaan cid kasta oo naftiina raali ka tahay Jaare si fiican ugu socotaa oo maalinta saddexaad shay Jaare waxa la baahnaa kaarka si fiican qaataan hadii ay kaarka qaadan waayaan maanta codkii tiradii kaarka dib loo celiyo ونوما فنيناga kormeerkii shaqada baan kulli ku wada jirnaa saaka waxaan ku soo bilownay Caratuulka Kalabayd ku soo xigsiinay Goray ilaa waxaan soo marnay Bataan Boodley imkana Jaare joognaa waxa si gaar ah ugu dareeyay gudoomiyaasha tuulooyinka aan soo marnay oo iska xil saaray hawsha qaran ee jirta qof kasta oo muwaadinana waxa kula dardaarmay in ay u fududeeyaan oo marka la yiraahdo kaarkii maanta waxa weeyaan maalintii saddexaad baynu ku jirnaa laba maalmood kaliya noo haray walaalayaal labada maalmood aynu ku dadaalna sidaynu kaarka u dhaqan lahayn waa Nimcaan Deeg Ibraahim Yaan La Xaaji TV qaranka Gabiley